xaflad ballaaran oo loogu talagalay xadhigka jaridda xarun cusub oo lagu xanaaneeyo carruurta agoomaha ah oo ay iska kaashadeen ururka Khadiija Aytaam iyo bisha cas ee Imaaraadka ayaa maanta laga furay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda degmada mas'uuliyiinta bisha cas ee Imaaraadka Culimaadudiin Abwaano maamulka waxbarashada gobolka iyo marti sharaf kala duwan. maamulaha xarunta cusub Manwar Rooda Cali Fil iyo wakiilka hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Siciid Saalax ayaa ka warbixiyay dugsigan cusub ee agoomaha. aad iyo aad baan u faraxsanaynay maanta carruurtii halkan wada fadhiyaan. carruurtii 4 sanadood baan raashin u keenaynay. 4 sanadood baan maalin bishii kastaba aan dadaalayna inaan wax u keeno, alaab u qaybino, dhar u qaybino. markii dambena waxa baan sameeynay mu'assasad Khadiija lil Aytaam. mu'assasad Khadiija lil Aytaam iyada maxay haytay imaka fankaraysa carruurtan. markii dambena waxaan la kaashanay maxay tahay Hilaal al-Ahmar dawladda Imaaraat wayna iskaaga dhinac taageen xog bay iskaaga dhinac taageen waxayna siiyeen kafaalad carruurta ah, kafaalad kaamila ilaa intay jaamacadda dhamaysanayaan. kafaaladda waxa ka soo shaqeeyay habla caraba ka soo shaqeeyay juudkayga halka soo gaadhay iskuulkayga furnay. ilaahay waxaan ka baryaynaa 900 bay ahayd iyo 970 qof inaan u keenay kafaali kaamila ilaa dhowr kun inaan gaarsiino baan ilaahay ka baryaynaa. waxaan codsanaynaa talgalkaygu waxa weeye inaanu ilaahay jaamacad lacagta ka bixino carruurta wax la baro. waxaana ku timi iskaashiga annaga inoo dhex maray Daarul Khadiija xaqiiqatan. hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta waxay u taagan tahay mar walba inay wax ka qabato arrimaha bini'aadanimo ma kuma koobna arrintan ay taamto kaliya. maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Xoday iyo Abaan Maxamed Warsame Hadraawi ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub ee agoomaha. waajibkana saaran waxaanu ballan ka qaadaynaa halka wax alaale wax iskuulka iyaga iyo kuwa la midkaaba wax alaale wixii nagu xidhan ee u baahan waxtar ee fududeyn u baahan ee tasiilaad u baahan qayb weyn baan runtii ka qayb qaadanaynaa. waa waajibna saaran. idinku agoon ereyga agoon in la isticmaalo anigu ma qabo. qofka ilaahay abuuray ummadda dhex jooga waxa weeyaan ummadda mas'uul ka ah maaha uun aabbaha iyo hooyada maaragtay fiican in la yidhaahdo waa ubadka ummadda. xafladan oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxaa kaloo ka hadlay culimaadudiin madaxda waxbarashada gobolka mas'uuliyiin iyo xubno badan kuwaas oo dhammaantood sheegay in xaruntani waxtar iyo faa'iido badan u soo kordhin doonto gobolka isla markaana u mahad celiyay dadka hirgeliyay xaruntan agoomaha. Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.